wararka maanta ka soo baxaya waddanka Mareykanka magaalada New Orleans ayaa sheegaya in nin uu gaari ku marsiiyey dad jidka marayay habeenkii xalay ahaa waqtiga 3 habeenimo. dad dabaaldega New York ka soo laabanayay oo halkaas gaari lagu marsiiyey. gaarigaas oo lagu sheegay inuu waa gaari xaajiyada. ninka dadka dilay ayaa lagu magacaabay in magaciisa la yiraahdo Shamsuddin Bahar Jabbar. waxaa yiri waa 42 jir ka yimid gobolka Texas. walaan dhageysano naagtan. By a terrorist attack. It's all still under investigation. We had this event started at about 3:15. It did involve a man driving a pickup truck down Bourbon Street at a very fast pace, and it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. halkaas ayaa labada xabrood oo hadlay waxay yiraahdeen waxay u shaqeeyaan ciidanka iyo nabad sugidda. waxay yiraahdeen nin gaari wada ayaa si ula kasa xoog ku marsiiyey dadka gaariga halkaas oo habartii hore hadashayna ay tiri xaleeto waxaa magaaladeena ka dhacday weerar argagixiso ah. markaas gaarigaas uu istaagay halkaas oo xabad ay isku dhaafsadeen booliska iyo shaqsigii gaariga la leeyahay waday. halkaas oo lagu dilay shaqsigaas laguna dhaawacay ilaa 2 boolis. fiidiyoyaal badan baa jira oo lasoo dhigay baraha bulshada tusaya wixii ama weerarkii ka dhacay meeshaas.